waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha maalan qaar taariikhda qore qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan deganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaanu xisaabino saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhanin lama gubin waxay leeyihiin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranayo uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saara hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana muranku ma jiro hadday reer yurubku qirtaan oo yidhahdaan 6 milyan oo dadaanu laynay inkaar baa qabteen baynu leenahay ma waxaan u difaaca ma yaallo laakiin waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaan ah nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl waa maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee wax geysta malafkiisaa la baadhayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist ahaa hadda hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaa dee ma doodi karayse maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysa waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysa hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorada xiirtay oo aad dhafoorada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay aadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad silada yaan dadku ku garanin sacinka maaha yaa dadku ku garanin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ku weynaado suurtagal maaha markaynu inagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasay u rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynayn oo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.